war degdeg oo hadda soo dhacay Iran ayaa gataalo ku garaacday saldhigyada ciidamada cirka ee Mareykanka ee Qatar iyo Iraq taasoo jawaab u ah duqeymaha lagu garaacay goobaheeda nukliyeerka Sabtidii sidii ay ku warantay warbaahinta dawladda. Gumaadka caawa Iran ay qaaday ayaa ah in Ayatollah Khomeini oo horaan balan u qaaday in xarumaha militariga ee Mareykanka ay ku leeyihiin bariga dhexe ay dhulka dhigi doonaan. Qatar ayaa xaqiijisay weerarka lagu qaaday saldhigga Al Udeyd ee uu Mareykanka maamulo waxayna ku tilmaantay mid xadgudub ku ah saldhigga waxayna sheegeen inay xaq u leeyihiin inay si toos ah uga jawaabaan. Ciidamada militariga Iran ayaa bartooda X ku soo qoray Iran ayaa 14 gantaal ku garaacday hawada Al Udeyd taasoo ah xarunta ugu weyn militariga ee bariga dhexe. Saldhig oo la mid ah bambooyinka Mareykanka uu ku tuuray Fardow waxayna sheegeen 3 gantaal ayaa si guul leh u garaacday bartilmaameedkii. Ciidamada kacaanka Iran waxay leeyihiin mar labaad waxaan ugu digaynaa cadawga Iran xilliga ku dhufashada iyo orodka wuu soo dhamaaday. Qatar ayaa si ku meel gaar ah u xirtay hawadeeda waxayna muwaadiniinta Mareykanka iyo UK lagula taliyay in ay gabaad ka galaan madaafiicda hoorayo. Trump ayaa hadda ku sugan qolka xaaladaha degdega ah ayagoo ka shirayo dhibaatada lama filaanka iyo dareenka caawa u soo yeeray. wararkan gumaadka Iran caawa ay ku hayso saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe wixii ku soo kordho waan ila soo socodsiin doonaa.